وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalahan daawanaya meel baduuka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkiina aan ugu hadlaynay qisada Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam. waxa marayna waxay tahay in hooyada Nabi Muuse ay aragtay wiilkeedii aad iyo aad ka u jecleed Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam. Nabi Muuse wuxuu ku sii barbaara waxay tahay guriga Fircawn ilaa uu awood u ka yeeshto. تربية متكو wanaagsan ayuu gurigaas uu ka helay. kadib maalmaha ka mid ayaa Muuse calayhi salaatu wassalaam wuxuu arkay waxay tahay laba nin oo isdagaalaya. midna wuxuu ahaa waxay tahay dadka qibtiyiinta Masar degan, iyo ninka kalena wuxuu ahaa waxay tahay nin ka mid reer Bani Israa'iil dadka la liidi jiray. kadib ayaa waxaa dhacday waxay tahay يعني نو موسى وجا إن بني إسرائيل اللي ذو ولا الدليل لو حد جود بيه وحلا متى كده بقى وحوس ده وحيته كعلي كالدفاع أيو سيري كده بقى يعني كخبطيين كأيو قبطي يعني وكلا جمي وحورة وحيته إنه كلا عليه كده بقى وحد على وحيته ما دام وأهانين أود له نك خبطيين يعني نك كلا وكل إنتاج ما كوساس وكلا توري إسلامك يعني وحاد على وحيته إنه يعني نفسده يكبح الأول ينتبه. نو موسى آديات بقولنا حي يعني صوبته موسى نغمين أسيجا إن يعني أودله ماكو أنت سوء كسر ماكو حيرة وحيته ربي ونفسده إذا أيام ظلمية إجرى على النقب أسيجوا عبسنية كذب أيا فرعون يقوم كيسا وحالوش شيء وحيته هاي إن لجد لي قف إن لجد لي qofkaasna qofka dila lama ogo sababtoo qofka kaliya meesha joogay waa ninka reer Bani Israa'iil ka iyo Nabi Muuse iyo sidoo kale qofka la dilay. waxa dhacday waxay tahay ninkaas waa la raadinayay. maalmo kadib Nabi Muuse wuxuu arkay waxay tahay ninka dagaad uu difaacayay iyo nin kale oo is haysta. kadib wuxuu yiri waxay tahay ninkii Muuse iga qabo iga celi. كده نو موسى وحيرة وحيته هذيك قف حد قدب بدن آيات هاي يعني محاوى أساس كده نكي وحوم لي وحيته هاي إن أسيج الدل غوت نو موسى وصي سعودي نكي وحوم لي إن أسيج يعني الدل غواب وحيرة وحيته هاي نو موسى يعني موحد سيد الشلة قف أودي شماغ بتماتنا يعني إن أيدش هذيك وحتى قف يعني أو فساد غب آياته كده عرنت ويفش المطي meeshaas dad joogay waxay maqleen waxay tahay in yani Nabi Muuse shalay uu dilay ninkii la isweydiinaya dilay ila waaba la raadinaya qofkii dilay asigana wuxuu yiri waxay tahay ma waxa qabtaa ina idishid aniga sida shalay u dishay yani qofka kale arrintu way fashilmatay arrintu ma kay fashilmatay kadib yani waxay gaartay waxay tahay ciidamada Fircawn. نو موسى آديات بقي إلا الدل أيوك بقي كذب محاد عاي محو سمية. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله. أنت مقالة أي كفافتي dadka dhan waxay isdhahayeen maxaa lagu sameyn doonaa Muuse. Fircawn iyo qoomkiisa way tashteen, waxay ku tashteen waxay tahay qof qibti sidee loo dili karaa, qof anaga reerkeena sidee qof reer Bani Israa'iil uu dili karaa. taasi macquul ma ahan. taas awgeed waxay go'aan ku gaareen waxay tahay in Muuse calayhi salaatu wassalaam la dilo. أيضا سيداس أي تهاي إلهي سبحانه وتعالى وحوت نعم وجاء رجل من أقصى المدينة نو موسى عليه الصلاة والسلام أسيو مرقيسا أيا وحاوي ماذا وحيتهاي مقالة جيس كذا أوي مت قف صعونية
إلهي سبحانه وتعالى مشي قفك وياهي لكن وحوتنا وحيتهاي فعل كأوسمي فعل كاسوا وعقودها وحيتهاي إن الملأ يأتمرون بك دتكي فرعون go'aamada la gaari jiray wasiiradii iyo asiga waxay go'aan ku gaareen go'aan cad aan laga leexa karin liyaqtuluuka inay adiga ku dilaan amar ayay ku bixiyeen kadib ayaa wuxuu ku dhahay fakhruj innii laka min annaasixiin si degdeg ah hadda muusow bax oo ka dheera oo ka orod yani inay ku dilaan ay rabaan ka orod ayuu ku dhahay innii laka min annaasixiin aniga waan ku nasiixaynaya maxaan ka baqaynaa matqaana aayadahan waxaan ka baqaynaa waxay tahay qof hada aragtid waa kaaga dhibaataysan oo kale ama dhib ku sugan xaaladiisa ay dhib tahay inaad u nasiixaysid inaad tala siisid ay tahay wax ugu fiican ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma sheegin qofka uu yahay talada bixiyay oo nabi muuse ku dhahay bax oo magaalada ka bax fircoon ku dili rabaa laakiin wuxuu sheegay waxay tahay ficilka uu sameeyay ninkan oo ah inuu nabi muuse tala uu siiyay lidaalika yani ficilka wanaagsan aniga adiga waxayno tahay 10 ayayno tahay waxa loo baahan yahay waxay tahay qof kasto dhibaataysan markaad aragtid ama xitaa naftaada inaad wanaaga u sheegtid nabigana sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay waxay tahay xaqa muslimiinta ay isku leeyihiin waxa kamid ah inay isku nasiixeeyaan nasiixo talo way macnaheeda talo oo qalbiga ka soo baxday oo isla markaas si adiga aad jeceshahay markaad dhibaataysantahay ama aqaldantahay ama waxyaalo ka dhacaan lagu toosiyo in qofka kale saas oo kale aad u toosisid waa xaq adiga aniga isku leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu barayo qissatu Muusa oo ah qof dhibaataysan markaad aragtid inaad u nasiixaysid ayaa loo baahan yahay حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل aadaabta nasiixada waxa kamid ah ninkan aadaabtu nabi Muuse alayhi salatu wassalaam ugu nasiixay oo ah in qofka marka rabtid tala inaad siisid horta talada hasiinin kuwa u sheeg ujeedada iyo dhibaatada wuxuu dhahay waxay tahay innal malaa wuxuu u sheegay waxay tahay in fircoon iyo qoomkiisa ay u tashteen ay rabaan inay dilaan yani kuwa dhibaatadii iyo xaaladii u soo bandhigay kadib wuxuu ku dhahay waxay tahay fakhruj bax kadib uu talada siiyay lidaalika qof marka tala rabtid inaad siisid ama nasiixa inaad siisid aad rabtid waa in marka koowaad adig aad og tahay sababta u siinaysid iyo inaad cadeemo iyo wuxuu ku qanci karo inaad u sheegtid kadib wuxuu dhahay waxay tahay innii laka min annaasixiin aniga waxaan ahay qof ku nasiixeen damba kalihi iyo wixii la mid ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo qisada noo sheekana wuxuu dhahay waxay tahay fakharaja minha khaifa nabi Muuse alayhi salatu wassalaam magaaladii asigu cabsanaya meel uu u leexdo lahayn yataraqab bal cabsi kaliya maana uu iska ilaalinaya ciidamada fircoon ma cabsan jiran qofna kama heebaysan jiran bal iska dhaaf qof reer bani Israa'iil oo ay liidi jireen awood yar oo isticmaali jireen sidii rawa ay wala dhaqmi jireen haduu yahay iska dhaaf waliba ku xad gudbayaan yani aydo sidaas ay tahay wuxuu dhahay yataraqab asigoo meel iyo meel fiirinayo dhudhuumanaya si ratiib ah meel u socdo uusan aqoonin ayuu baxay nabi Muuse alayhi salatu wassalaam wuxuu dhahay waxay tahay rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin rabbi yow iga badbaadi qowmka dhaalimiinta ah yani qowmka dhaalimiinta waa qowmka fircoon ha asiga qof buu dilay laakiin dilka uu dilay asiga kama ahayn inuu qofka dili rabo بل وحده هذا من عمل الشيطان وعمل كشيطان وسكما أيو دعادي أسيق وحوه إنه كلا عليه نك هو ريحي ودنته أسيق مرة بإنه نك دلو بل لكن أيجا أرجوس شو عيلة يقوان موسى عليه الصلاة والسلام أي وحي ربا إن نوم موسى أي دلان لذلك نوم موسى عليه الصلاة والسلام وحده وحيت هاي إلهي وعداد ما سمينا يعني ولما جدينا نك دلو نجيني من القوم الظالمين إن الظلميان ويقول حد قدبان دل أنيق أن جيسن أو دل أن جيسن ربا إني قوقت إيه ساران إذا ما كان دل أنيق أن أقصدن أنيق نك واكل توغي فقضى عليه أسجن ودنتي إلهي قوم ظالمين وإلهي يقبل أسيقو دعيسنا يمال أجيست أوسن أوغين أيو سي سعودي مقالذي أيو كسي بحينا موسى عليه الصلاة والسلام
حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء.